ciribtaydu naar weeye reer ilaahay abuurtay oo meel degan oo muslima oo Soomaaliya in la nabcaada wax easy ma aha ilaahay baan taa ka magan galaya laakiin waxaan anagu nacabahay waa nimankan mabaadidooda iyo waxa faasidka ah u qoran Ahmed Yusuf Yaasiin oo madaxweyne ku xigeenkii Daahir Rayaal ah baa wuxuu sharaxay calankooda balse aanu dhageysta wuxuu yiri casaanku waa dhiigii aynu daadinay dhiig ayaa laga daadiyay dhiiga cida laga daadiyay waa Soomaali hamxaarna ma aanay dirin Ingiriisna ma aanay dirin gaalkana ma dirin ogaada casaanka wuxuu yiri waa dhiigii aynu daadinay cadaankana wuxuu yiri waa nabadii cagaarkana wuxuu yiri waa barwaaqadii xidigta madow oo ku dhex taala wuxuu yiri waa xidigtii shanta gees ee Soomaaliya oo dhimatay weeyir dadka marka Soomaalida ah ee dhalinyarada ah ma garanayaan waxa ay ku dabaaldegayaan oo ku damaashaadayaan oo ku heesayaan waa xabaashoodii nolosha Soomaaliya nimankan ku aaseen noloshay ku aaseen Soomaaliya sadarteed waxaan arkay wiil yar oo Mareykanka jooga oo leeyahay sanadku ku jira wuxuu ku jira councilka Minneapolis ku jira oo malaha reer Puntland ah oo apologies bixinaya wiilkaasi markaad eegtid shucuurtiisa ma garanayo wixii uu ka qayb galay waxay ahayd mana garanayo waxaan uu apologies ka bixinaya waxa uu yahay kuwa gudaha joogana waa la mid kuwa u bareeray arintaas oo ay ugu horeeyaan kuwa aan hanka qaran lahayn hanka qabiilna lahayn cidna wax ku yeelmayaan marka wacyiga Soomaalida wulita very good example kale waxa idin ah gobolka leeyahay SSC magaalada leeyahay Lascaanood waxa la gelay dispute area nimanka garoowa fadhiya ee hadda mashaariic baan haynaa way ku faraxsanaayeen inay meesha dispute tahay way ku faraxsanaayeen dadkeeda habeen kasta qofka ugu qiimaha badan in la qasho wayna ku faraxsanaayeen SNM ay ka taliso wayna ku faraxsanaayeen iyaga garoowa baada in looga qaado Galen media page-kiisa ku jirta inay dhaqaale ku bixiyeen inaan SNM baa ma gaarin oo laga qaleeyo waxay ku jirtaa Galen media page-kiisa saadarteed waxay maraysan wasaaraha Soomaaliya in xabad looga saaro dispute-kii si kinwana siyaasad ahaan ra'iisul wasaaruhu uu ka saaro oo Soomaaliya dawladeeda ay timaado waxay ahayd sharaf qof kasta oo damiir leh oo Soomaaliya uu u dabaaldego iska daa Soomaalida kale iyo siyaasiyiintii kuwa reer SSC ah oo maamulka u dhaartay iyo kuwa dhaqankii yiri xamar baan hoos tagna aba ka soo horjeeday bal ummadan wacyigeedu inuu zero yahay cid kastaba waxay ahayd inay u dabaaldegto maadaama xabadna lagu xaqiijiyay dispute-kii in laga saaray siyaasad ahaanna lagu xaqiijiyay oo ra'iisul wasaarihii oo xukuumaddiisa wata uu ka soo degay waxay ahayd in loo dabaaldego Lascaanood waxay ahayd meesha ummadda Soomaaliyeed laga raafiyay oo laga tarxiilay waxa loogu talagalay qofka garoow ka yimaadaan uu fiiso ku soo galo iska daameel ka shaqeysay maantana waxa imanaya oo ku qulqulaya qof kasta oo Soomaali ah waxay ahayd sharaf soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed biajibadaha ninka ka mudaharaadsan muxuu ra'iisul wasaaruhu u yimi iyo ninka siyaasiga ah ee istiil ka aamusan muxuu doonayaa ana idin sheegay waxa uu doonayo waa jaahil aan taatuus ah oo aan midnimada iyo qarannimada iyo wadajirka midna sharaf ugu fadhiyeen qodobkaas waa wacyi marka reer khaatimo waxa rabaan ku dhaado u dulqaata dhalinyarada bilaa wacyiga ah oo aan haysan cid wuxu sheegta oo aan helin manaahij tarbawi horabaysa maanta waxaad arkayseen page-kayga ku jirta arday laga jarjaraya calaamada reeraha gabadh yar oo aan ku qiyaasay 4 sano jir baa waxay tiri macallin wacalankii Soomaaliya hayga jarin kan reer ma laha macallinkii baa ka jaraya 2016 baa waxaan tagay Soomaaliya ana Afrika markaa ka imi waxa la sheegay manhajkii waxbarashada ee Soomaaliya hay'adda leedahay UNESCO buwaagta inay iibsato haddii leedahay buug manhajkii Soomaaliya ee malhablayaal intay iibsadaan inay gudub qabadsiiyaan libaada waa nimanka hadda reeraha u sameeya manhajta Puntland manhaj galmudug manhaj hirshabeelle manhaj SSC manhaj Somaliland manhaj wariisan kala rabo Soomaalida in loo kala dilo ilaa la waayo qof Soomaalinimada u damqata wuxuu ii sheegay niman saaxiibanahay SSC hadaa tihiin maxaad Soomaalinimada ku falaysaan
soomaalinimada maxaa ku falaysaan maxaan sheegtaa anigu oo aan soomaali ahayn dadka maxaan ugu yeedhaa oo aan soomaali ahayn maxaynu wadaagnaa oo aan soomaali ahayn maxaa inaga dhexeeya oo aan soomaalinimada ahayn haddii taa la waayo waa sidii la doonayay maxaynu soo baxaynaa marka waxaan rabaa inaan wacyiga bulshadana wax laga qabto oo wacyigelinta ha la kordhiyo dadkana ha loo dulqaato wiilka jamaal hadda apologiska bixinaya Minneapolis oo qayrkiisna ha laga aqbalo apologiska dadkana ha loo cudur daaro qodobka intaasan ka horanayaa qodobka ugu horeeya oo aan rabana wax ka dhad reer SSC dhammaantiin bacda salaan maxaa guuloo la xaqiijiyey labadii sane ee hadda gabagabada ah ee kumeel gaadhka aynu ku jirnay maxaa guuloo la xaqiijiyey oo guulaha la xaqiijiyey waxaa ka mid ah marka laga reebo inay sharafta iyo dhulkuba xor yihiin fagaarayaashii dunida lagu soo laabtay reerihii Soomaaliya la soo gaadhay aanadla kaftame always anigu waxaan qareenka ula baxay inaan dhulka Soomaalida oo dhan ka hadlo hadda ka hor markii la sacnood la haystay waxaan xasuustaa waxaan ka hadli jiray kan hore hadda oo kale xilligii doorashooyinku taagnaayeen markii sida kubadda loogu cayaarayay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo masiirka ummadda especially Dani iyo Madoobe shirkiisa Mareeb wanasha khudbadii buqbuqo ee Garowan kelmad ka idhi waxaan ka idhi kelmad iyadana isheeg shiru juxa qabanayo laha confederal waa hadda ka hor weeyaan walaha waa go'ayna anaku marka waxa la soo qori jiray maxaa ka khusayay Puntland orad xare niman weyn baa soo qori jiray kamaan jawaabi jirin hadda laakiin hablihiiba waxay soo qorayaan maxaa Puntland ka khusaya waxaan rabaa inaan u sheego shanta Soomaaliyeed anigu waxaan aaminsanahay inay fariintaydu gaari karto cidda anigu aan la hadlaana waa cidda aan isleeyahay waxba ku dhantaa cidii iyadu iga sareysaya yaani idhigeysan cidda iga hooseyso aan fahmayna yaani idhigeysan laakiin dad badan oo ila ra'ayaba jira Garowe iyo gaalkacay aniga future-kayga iyo mustaqbalkayga iyo nabadayda iyo ehelkayga ayaa Allah waxa ma garatada maanta ka bilaabay meesha la yiraahdo isheeg meesha magacaadkeed muxuu ahaa inay xuduud ka sameeyaan kuma fiirsanay waxbaan ka oran doonaa aan soo laabto waxyaalaha la xaqiijiyay waxa ila la yaabad inaga qofo waxba wax ku qiimeeyaa dood maalin dhaweyta ka baxaysay Laascaanood oo uu daadihinayay Professor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi waxay ahayd dood dhagaha Soomaalida ku cusub Cabdi Xaashi waxa lagu tiriyaa ashxaasta ugu aqoonta badan Soomaalida laakiin Maxamed Cabdi Xaashi iyo qayrkiis ma aanay helin platform ay doodaha noocaas ku soo bandhigaan wax fursadana lama siin fursadda waxa la siin jiray geeltirayaasha iyo kuwa ariga ka soo leexday baa waxa laga dhig jiray xildhibaano iyo wasiiro in dadku ay doodaha noocaas keenaan ama dhageystaan ay ka qayb galaan wax weeye waa guulaha la xaqiijiyay oo ah dadkiisa inay heleen fagaarayaal ay doodahooda ku qabsadaan kuwa ay yihiin Soomaalida ay ugu sheegaan